الله naxariistay Korneyl Sheekh Ibraahim Cismaan Cali oo dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga ayaa meydkiisa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaana aas qaran loogu sameeyay qabuuraha isbitaalka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Hirshabelle iyo qaybaha bulshada ayaana salaada janaasada kula tukaday garoonka diyaaradaha iyo qabuuraha isbitaalka xoogga ee lagu aasay. Korneyl Ibraahim Cismaan Cali ayaa ka mid ah saraakiisha lagu aasaasay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya waxaana xilal kala duwan oo ka soo qabtay hay'addaasi. Sanadihii 70-meeyadii ayaa loo soo wareejiyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uuna ka howlgalayay muddo 40 sano ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo uu ka mid ahaa mas'uuliyiinteeda. wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaano, mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin kale oo saraakiil ciidan ay ku jiraan ayaa ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyay marxuum Korneyl Sheekh Ibraahim Cismaan Cali oo lagu aasay qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Jenaraal Cabdullaahi Xasan Bariisi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay waayaha Korneyl Sheekh Ibraahim Cismaan Cali ee booliska nabad sugidda iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ee uu ka howlgalayay. Sheekh Ibraahim Cismaan Cali oo ka mid ahaa asalkiisa horena dadkii booliiska aasaasyaashii booliiska oo runtii muxuu ahaay kadibna u wareegay nabad sugidda kadibna ka mid ahaan jiray mas'uuliyiintii daadihin jirtay oo nuur bidaar iyo allahu wada naxariisto iyo jenaraal gaafku oo hadda noole isaga ayay ahaayeen saraakiishii lagu aasaasay qaar ka miduuna hadda waa joogaan ilaahay ha u naxariisto waxaana tacsi u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama uu sargaal qaran ahay qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tegane samir iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bahda muxuu ahay immigrationka waaxda hoggaanka socdaalka jinsiyada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isaaq iyo doobka dhaqanka ayaa ka tacsiyay geerida marxuum Korneyl Sheekh Ibraahim Cismaan Cali iyagoona Alle uga baryay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt. Sheekh Ibraahim Cismaan Cali marxuumka aan hadda aasnay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannatul firdaws geeyo ahalkiisa iyo ummadda Soomaaliyeedba inuu sabir ugu deeqo. runtii on Sheekh Ibraahim raggii hadda iga horeeya taariikhdiisa ka warameen. Sheekh Ibraahim Cismaan Cali wuxuu ahaa nin immigrationkii Soomaaliya raggii ka shaqeynay ugu horeeyay ilaa 60-meeyadii ilaa dawladda Siyaad Barre ay dhacdo intaasuu ka shaqeynay u khidmeynay shacabka Soomaaliyeed. rajcuun walaalkeen Sheekh Ibraahim Cismaan Cali ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto wixii taariikh ahaa raggii uu la soo shaqeeyay ayaa ka taariikhayay waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka iyo qoyska iyo carruurtii uu ka tegey iyo bahda socdaalka oo muddo dheer ilaa 60-meeyadii uu ka soo shaqeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala sabir iyo iimaan Allah idin ka siiyo gadaashiisna ilaahayna ma fidneeyo asigana nin runtii culummo oo ahlu khayr ayuu ahaa ilaahay waxaan u weydiinaynaa waqti wanaagsan bil Ramadaan uu dhintay ilaahay dambigiisa dhaafo jannatul firdawsana oo maxaan ku raadaya ku casuumo. Sheekh Ibraahim nin dalkan wax badan u soo qabtay soo shaqeeyay oo runtii dadkii ugu horeeyay hay'adda socdaalka iyo jinsiyada lagu aasaasay tan iyo markii aan dawladda Soomaaliya ay curatay ayuu ahaa ilaa iyo 91dii ayuuna halkaa joogo ka shaqeynayay. nafsi daa'iqatul mawt qof walbana waa u dhimanaa marka waxaan leenahay annagoo ka mid ah ehelkiisa waana isu tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waa ugu tacsiyeynaynaa ilaahay waxaan ugu baryaynaa gurigiisa jannatul firdaws inuu ilaahay ka dhigo khayr badanna waa ku naqaanay waqti wanaagsan oo Ramadaan in ilaahay tiisa waa keeno waa u dhintay waxaan leenahay intii soo aastoo nagala soo qayb gashay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo asana jannatul firdaws Allah ka waraabiyo Soomaali maxamedna sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyaan leenahay. ilaahay rajcuun Allah u naxariisto walaalkeen Sheekh Ibraahim Cismaan Cali waa nin qaranka u soo shaqeeyay muddo badan soo shaqeeyay 50 sano ku dhow soo shaqeeyay waa nin waddanka xaq badan ku lahay waa nin rag badan oo maartay uu soo barbaari ay joogaan waa nin garanaysa qarankii intuu qaran jiray soo shaqeeyay ku gaaray sargaal sare ku gaaray waa nin xagga diinigana aad ugu ficno sheekh culamo u ahay sharciga islaamka aad u yaqaanay ilaahay qabrigiisa u nooriyo.
maxamed iidle universal t v magaalada muqdisho.